وأنا كوقس بكرنا دي كرنا وكجابي سوى شهادة قبصة هذه هذا أركين وأنا هذا وأركا قف كرة هجو كان تاجر هجو كان تاجرين إن كسر جد هجو لكن واحد نقد حي الله وضل كان إلى السنة وإنا ديكرنا الدولة دينا ماشي كجابيسو أي كجيستو واجب كشقة سعر أي كجودن ويس إن ستوس أنا فكرة أهانكو كل الدبراني وين عدا هذا واحد بدلان كده حي عديمها الله يستو شيئها ودمدا كصوب حي دولة وحياة بقول كيو بقول واحد أيها نحذو ذا كلام نحي إن جودها إن أنت مال نجانا إيه قرب استعجان تحسنا ما ماشي مطالو كبعض الناس تردد أنا واجب كنا صار حتى بريشك إنا صارنا الدولة ده إنه واجب كذا جودته هاش هذا أنا قبضته لما واد السلام يا كل هذه الصقر حياتها وحرج يعني عارف ما دي بروقنا كشتان ما توير مشغول سنة سلام بانكم محبطين كدر سن مايو حليم عبد القادر من نيمو عمر أي حنا لما تتكوز جوجا محمد حسن واد السلام يا حرجين أنا عارف كودا قبطان ما أنت ماشي محكمة صراحة كفرن وضعية بدن ولا لي بوينتها كل أضحى الوقادة دقي بنتلان إيو يعني dadkan ajaanibta la raafayo in ajaanibta la raafano waa taageersanahay cashuur kuma qabno dakhli kuma qabno horumarin kuma qabno dad xirfado xitaa laga faa'iideeyo ma aha puntland hadday iska dhoofiso dee waa sax maanta ajaanib ayada ka dhex dagaalamaysa oo ku dhex qasanaysa inkastay wacantahin sharciyad wacan loo maro oo aan wax dhifayta lasoo gaarsiin dadkaas لكن إن لدهم حلقة هنا يا محاكم لو سمعني خلادات بدن وإسكت راعيان سيدا بنامنا ضد مسلم أو ميل دكان دول مسكم الراعان وحركة كليب لوريتشينا يو ضد رير بوساس أوه بسكت أنير أو خلادات كاستميني يسيحون ضد كقبانية لما إيجي ماموين كالوري لاهي كباقة ورددك كقبطة لغا راف وايو iyagu hadda in yar oo joogto wadankooda waxay ku qabaan caalamka waxay ku siiyaan xiriiq qaxoontiinta u sameeyeen qaxoontinimo wax ku siiyay inaka macid baxna ku siiyay Soomaaliya ku xiliyo guriyo hooyadood ma xanaga galay yamaniyiinta saasoo kale halkaas waxa arkay nin ay soo duubeen oo ay fowqta maalintiina tuugsanaya maqaxyo khatarsanay garwana ka casheeya marka iska mashaakile waxaan hal loo sameeyo faylal wixii la tuuri kara hal la tuuro wixii laga faa'iideeyo dee hal lagu soo rogo iqaamaad hal la siiyo عشورها لغا قاضو دمان كنتريا الصومالية بنادر هبيلودو مقدش هبيلودو هيرشبيل هبيلودو كفر قلبيد هبيلودو dalka Soomaali baa iskale dadka lagu dhibaateynayaan waa Soomaali wax dhibaateynayna waa ajaanib haddii siyaasad Soomaaliyeed ku dhibaateynayaan haddii qori ku dhibaateynayaan haddii erkagixisnimo ku dhibaateynayaan marka taa laga tashado aad baa idin salaamayna waxaan rajeynayaa dhamaad fiicantii dhabaatana waa wada salaam mar labaad hey warni oo midnimo waan ku salaamay iyo gudoomiye Xaliim iyo Ikraan oo dambiisay iyo dhamaan martii kale meesha joogtaa waxaan ku soo gaaray barnaamijkii ahaa tarxiilka ka bilaabmay Puntland caana badan niyo tarxiilkaas si walba u dhacbaan oo soo dhaweynaya nooc doona ha u dhaco sababtoo ah dadku sharci darre ku soo dareen dalka waxay ku soo galeen dhuumaalaysi waxay la soo galeen fusuq dembi iyo argagixisho ay u dheer tahay maraykan baan hadda joogaa maraykan saasaa la soo caydhcaydhsanayaa iyo si ka daran weliba guryaha la isugu geliyaa intii guryaha la isugu galo weliba qaar maxkamadda sharci siisay waraaqo siisay fa guryaha loogu geliyaa garan maayo wixii idin dabaqday caruurtan yar yar ee mobilka gacanta ku sidato garan maayo waanu garanaynaa sheekadaasi meesha ay ka socoto bilo wardigley bay ka socotaa iyo tiimka foosha xun leh ee ganacsiga ka dhigtay dawladnimada qofka garow safiiro adaa ku wata qofka garow wiilasha qaladka sameeyay duubaya ma xasan sheekh waa soo diray صح xasan sheekh waa soo diray anaga ale xasan waa soo diray waayo wixii xub xawale ku sax
qurun oo dhan isaga iska حسن بلاي ودنا أسوي مدح وساري qurun oo dhan dhibaatada tan maanta ee Puntland ku jirto iyo argagixisada tan iyo dadkan ajnabiga ah oo xumada la soo dhisay weliba siiba argagixisada tan ku horeeyo xaqiiqdii koonfur bay nooga timi داعش يا الشباب سفيرو أنا دجال كلا كجرتا مركزي هو ما يعني أرجع حسن كونفور كاجمي ما أرجع حسن سومالي ودنا يكون جرتاي واقص حقي أنا ماشي هرجيس على قصة الحيلة مقدشة لقيا مقدشة شات وحدة ذهب وحدة بونبونسة نيو رالا أنا حكى سنة لو قصة الحيلة نيو رالا نيو رالا تاسو ku qaldan tahay صح عندنا مية حقده يحليو داعش يا الشباب دد بسل وديارة اسكو دوبان بانو نهرير بدلان هتانو نهي وانا الله دقالمينا sidaanu ciidankayga u garab istaagnay sidaanu isugu duubanahay si aanu waxa weeye Puntland aan uga maradhalin lahayn mustaqbalkayga iyo Puntland bay ka muuqataa dadkan ajnabiga ee waxa weeye dalka jooga waxa shacabka iyo dawladdu waa inay raafaan nooc walba loo raafi karo waayo mustaqbalka dheer waxaanu doonaynaa Puntland inay noqoto meel waxa weeye adduunka ka mid ah meel adduunku nin walba iman kara oo sharci ku iman karo investment gashan karo waxaanu doonaynaa inaanu ka mid noqono tiirarka caalamka ku basbeeli meeno tiimkaas waxa weeye dawladnimadii Soomaaliya handicapta ka dhigtay maanta reer Puntland kacdoonku wuxuu ka bilaabmay shacabka Puntland First Puntland Unit waxa weeye shacabkii baa bilaabay inay danahooda qabsadaan waxa naga dhaba oo naga asala sidaanu dagaalka u galnay iyadoo aanay dawladna caawinayn iyadoo aan maxaan ku yiraahdaayay Afrika noo joogin iyadoo waxa weeye maxaan ku yiraahdaa isoo qabo meelo kale taa kulan la ka siinay baanu argagixiso international u baabacdignay waanu dharka guulaysin sababtuna waxa weeye inaanu nahay shacab dalkooda iyo dadkooda iyo dawladnimadooda jecel waanu naqaano in xoro loo wado ee aanan aqoon in heeriyada la safiiro soo gabagabeeyeen waa hadda wada u kaadi anagu noqon meeno reeriyadiisa cune sida waxa weeye koonfurta maanta taala ee xasan sheekh maxamuud xabaalihii faganayo dawladnimadii cunayo dhulkii cunayo waxa weeye lafihii aanu deynayn noqon meeno سفيرو أنا قاعد جودها كما هادلين إثيوبيان كي نبكي كوها أنا كهادلين واقص إثيوبيان كحسن شيخ بكترن حسن شيخ بكترن إثيوبيان كل شيء حسن شيخ وحا إسلا راعسنتين وبل ولك يقولون والله سفير ليك هذا كورة وحلا كعنكي وحلا هذا كورة على سوحر الله وبلد روك كعنكي وكديري أرساي سفيرون ما عود ما يسمى ربطة مركز بقى أنا قاعد حليمو لكن إثيوبيان كي نبكي نوها كهذا حسن شيخ وان كهذا يا أوكادي إثيوبيان كوحة كعن بيلا صوماليا كوشرا والله بالله تالله كعن وانا دارتي مري والله انت هاي أم حاركة ما أنت تلقى صوت بعيي ninka ka xun $80,000 hotel ku seexanaya sida ahmaqnimada leh dalka u burburinaya
kaasaa Ethiopianka Soomaali aw nabi Ethiopian Soomaali ma ka wada anagu war Soomaali meel anagu Puntland baan dhahnaa war Soomaaliya hada jeceshay hadii kala hay safir waa dhamaysa mudgala marka adeer ma dhamaysa waa ku sidii hal soo gudbisay adeer ana maysto ay gulwadinimo soo gudbiyay ay aan dhamaysto adeer marka dhamaysto meega qabsada hay iga soo xigilin Ethiopian iyo Soomaalida waa la raafayaa Soomaalidu sharaf iyo karaami Puntland way ku joogayaan xaq bay u leeyihiin ku joogaan cidina baadar gareyn meesho waxa weeye la dhibaateyn maayo waxa weeye dalka iyaga iska shaqada aanu ka hadlayno ma aha cid aanu ka hadlayna waxa weeye Ethiopian oromadan dalka ku soo duulay in la raafo sultaan wada ku watay su'aal ma weydiin karaa midnimada maasa waxa weeye dalka laga masaafiriyo noocii doonaba loo masaafiriyo waxa dalkay ku soo koobaya fiiro su'aal baan rabina weydiiyo xidhaya mar dhow su'aal baan rabina ka gaarsiiyo adeer Allah khayr ku siiyo hadalkay waxaan ku soo koobaya adiga ma siisid bal okay war gabadh may tahay safir hada ma istamay midnima waxaan rabina weydiiyo adag wallahi muu dhameynaa waxa weeye uu nagu dhameynaa kaadi daqab safir ba watay may ka safir iskale midnima waxaan rabina weydiiyo safiro adigu maanta dhan waa joogtay hada ii faa'iideyn kartaa jawaabta ay sheegi kartaa maxkamadani maanta unbay ku ekeyd mise berri way sii soconaysa qadiyad weyn baan wata maxkamad u baahan raafka okay safir waa dhameysay markii safir waa dhameysay waan soo gabay ukaadi ma dhameeyay Umar gacanta daasho maanta dhan saan u booboobeyn gacan de waa ku way iga soo dhaxgeliyaan waxaan ku soo gabagabeynaya ajnabiga wadanka jooga noocii doonaha loo raafo waanu raafeynaa argagixisada waanu layneynaa waanu xidhxidheynaa annagu sida koonfur hoosta gashan meeno argagixisada iyo qurunka iyo waxawey ku shaqaysan meeno u malaysaa inay fiila wardi waxaan dhamaysta u kaadi fiila Soomaaliya wuxuu ku shaqaysataa 6 bilood wuxuu ku shaqaysanaysaa argagixisada la dagaalamaya dhaqaalay ku qaadatay haddana dib bay loo asaasay ciidankii waxa weeye lagu khamaaray ciidankii Soomaaliyeed oo iyadoo aan waxa weeye qorshe loo sameeynin argagixisada la dhaxgeeyay lagu laayay miidiyahay ku wada jirtaa waxaan leeyahay argagixisada iyo fiila Soomaaliya waa isku mid aniga ay tahay Ethiopian Umar ay maanta dhantahay isugay thank you Halim thank you so much dadka waxaad moodaa ayagu wax wanaajis leenay wax xumeynayaan buuro baa laga dhacay ma garanayo hadalkii safir hadda wuxuu ujeedkiisu ahaa ma wuxuu weerar ku hayay anaga reer koonfur weerar nagu yaar argagixisatiinooneeyay wuxuu weerar ku hayay ummad kale isla dadkii Soomaaliyeed weerar ku hayay waxa hadda uu sameeyay kala yiraahdo safir waxaan dhihi karnaa waxay ragaad ku tahay ummadda Soomaaliyeed waxay ragaad ku tahay Puntland yani waxaba yaraatee wanaag uma sameyn doonto waxaan ku leeyahay safiro ka laabo oo ka fiirso waxyaabaha qaar dadka deegaanka dadkan Soomaalida dadkan isku coodkii isku caynta ah ha isaga dhigin dad ayaga isku cadow ah isaga dhigin anu Soomaali ka waxay fiila Soomaaliya fiila koonfur markaad leedahay oo fiila Soomaaliya leedahay oo leedahay xasana ka daran waxa la yiraahdaa amxaarada xasan madaxweynaha Soomaaliya fad ama hafadi anigu reer Puntland ma hay wax Puntland lagu sameeyayna waxaan aqbali karo ma arkay sidaas oo kale tood inaad adiguna noqoto halka uu ku jira maanta yani haba yaraatay adiga faa'iido kuma helaysid inaad fiila Soomaaliya ama dadka koonfur jooga hadaf la gaadho